soo dhawaada saaxiibadana YouTube haddii aad tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka noo sar subscribe. Filimkan wuxuu ku bilaabanayaa Eli oo ka soo baxay gurigooda si uu ugu ciyaaro banaanka. Da'diisuna waa 11 sano jir. Markii uu qufacay ka bacdi dhulka ayuu ku dhacay. Maqaarkiisuna waxa uu isku dayay inuu casaado, wuu qayliyay balse cidna maysan caawin. Hooyadii ayaa ku dabiibaysa gurigooda waxaanay u gelisay bac buluug ah. intaas ka bacdi Eli hooyadii waxay mar walba ay jeceshahay inay waqti ay la qaadato wiilkeeda ayna dhiirigeliso. Waxaan aragnaa Eli oo cadayanaya. waxay hooyadii ay ku wargelisay in la geynayo dhakhtar si loogu dabiibo xanuunkan ku dhacay. Aabihii sidoo kale waxa uu u qaadaa boorsada. Eli uu ku faraxsan yahay maadaama loo wado dhakhtar si looga daaweeyo xanuunkan allergiga ku ah wax walba. Eli waxa arkay nin waxaana uu ku soo tuuray dab balse dhulka ayuu ku dhacay. Eli hooyadii aabihii ayaa soo qaaday waxaanay hooyadii lugta ay kaga dhajisay koolo maadaama ay bacdo ay ka jeexantay. Eli intaas ka bacdi hooyadii aabihii aad ayuu ugu faraxsan yahay. Hooyadiina mar walba way dhiirigelinaysaa wiilkeeda. intay dhabada ku jireen waxay soo agmareen gabar la dhaho Eli. waxay soo gaareen goobtii lagu dabiibi lahaa wiilkooda. intaas kadib Eli aad buu ugu faraxsan yahay maadaama goobtan la keenay dhakhtaradiisa oo ah Honey ayaa loo keenay. intaas ka bacdi Eli waxaa la tusayaa qolka uu ku noolaan doono hadda inta la dabiibayo. hooyadii iyo aabihiina waxa ay ka taagan yihiin gadaasha. dhakhtarada loo xil saaray caafimaadkiisa ayaa u sharaxaysa qolka uu hadda kadib uu ku noolaan doono. waxay u furtay shaawarka. Eli markaas muusan qabaysan muddo waayo wax walba waxa uu ku qabay allergy. hooyadii waxay gelisay laabta balse Eli markan waxa uu galay shaawarka si uu u qabaysto maadaama ay mar hore ay ugu dambeysay. habeenkii markii uu seexday cod ayuu banaanka ka maqlay. markii uu daaqada fiiriyayna waxa uu ku arkay muraayada oo wax lagu qorqoray. hooyadii ayaa laabta gelisay. subaxii markii uu soo kacay waxa uu u dacwooday dhakhtaradiisa balse Eli subaxaas dhakhtarada ayaa baaraysa waxaanay dabiibaysaa xaaladiisa caafimaad. intaas ka bacdin Eli waxa uu isku dayayaa inuu qayliyo. maqaarkiisuna aad ayuu u sii casaaday ilaa ay la yaabeen dhakhaatiirtii daaweynaysay. intaas kadib waxa uu dib ugu soo laabtaa sariirtiisa waxaana uu arkaa qof banaanka wax ka soo tuuraya daaqada. markii uu fiiriyo waxa uu arkayaa gabadh taagan. gabadhaas oo u sharaxaysa turub gacantana ku wadata dab. isaguna markaas waxa uu u arkay inay tahay gabadha tani Rooxaan. Eli intaas ka bacdi waxa uu dib ugu soo laabtay qolka asagoo wata toosh waayo habeenkii hore aad ayuu u argagaxay. caawana uu ka sii daran yahay argagaxiisu ilaa uu qaatay toosh. aabihii ayaa dareemay inuu wiilkiisu naxsan yahay waxaana uu ku wargeliyay inuu garabkiisa uu taagan yahay uunan marna ka cabsan goobta uu joogo. intaas ka bacdi hooyadii iyo aabihii ayaa mar walba dhiirigeliya. waxay u keeneen buug si uu ugu mashquulo balse Eli waxa uu mar walba shitaa tooshka habeen walba. waxaana uu muraayada uu ku qoray Eli tooshkii markii uu ka dhacay ka bacdi Eli waxa uu ka baqayaa markan humaagiisa. Eli intaas ka bacdi waxa uu yimi hooyadii iyo aabihii waxaanay u sheegeen inuunan mar dambe waxaan oo kale uusan ka baqin. dhakhtaradii ayay u yimaadeen hooyadii iyo aabihii
balse Elin subaxaas waxaa loo sameeyey caafimaad si jidhkiisa loo baaro. Elin inkastuu qayliyo maqaarkiisuna wuu casaadaa sidii maalinkii hore. Dhakhtaradii way la yaabtay dabiibaysay Eli. hooyadii iyo aabbihii waxay u sheegeen inuu caafimaadayo uuna iska daaya baqdinta faraha badan maadaama ay la joogaan oo ay garabkiisa ay joogaan. Eli intaas ka bacdi waxa uu furaa daaqadda asagoo oo aad u argagaxsan. balse daaqadda qof ayaa gacanta uga soo taagay. tanina waxay ahayd argagaxiisii ugu xumaa uu arko habeenkaas. intaas ka bacdi habeenkaas ma uusan seexan Eli, waayo wuuba argagaxsan yahay. hooyadii iyo aabbihii iyo naagtii iyo dhakhtaradiisii ayaa u yimi si ay niyadda ay ugu dejiyaan. habeenkiina waxaa u timi gabadhii ruuxaantahayd oo uga sheekaysay in xanuunkan uu ku dhacay ayadaba. balse Eli waxay ku noqotay qaadanwaa gabadha tani waxa ay u sheegayso, waayo hadda ka hor gabadha tan waxay u soo istaagtay daaqadda ayadoo gacanteeda ololayso. Elin dhulka ayuu ku dhacay. intaas ka bacdin Elin aad ayuu u argagaxsan yahay. hooyadii iyo aabbihii iyo gabadhii dabiibaysayna waxay isku dayayaan inay xaaladiisa iyo jawigiisaba ay dejiyaan, balse Elin aad ayuu u xanaaqay waxaana uu ku dhacay dhulka. aabbihii ayaa dhakhtarka ku yidhi, waa maxay waxaan wiilkayga haysta? sidoo kale hooyadii ayaa garabkiisa taagan waxaanay u keentay daawo si uu u cuno Eli, daawadaas oo ay u qortay dhakhtaradiisa. balse kabadhkii uu yaalay waxa uu ku qoray tirooyin aad u badan Eli. intaas ka bacdi wuxuu arkaa boorso gubatay, waxaana uu aaminsan yahay in gabadha ruuxaanta ah ay gubtay maadaama iyadu mar walba ay u imanayso gabadhan ruuxaanta ah. Eli aad uguma faraxsana inay gabadha tani ay la hadasho, waayo waxa uu ka qabaa argagax. habeenkii dambe ma uusan seexan, waxaana uu tooshka uu kula wareegayaa qolka uu joogo. qolkana waxaa jooga asaga keligii. hooyadii iyo aabbihiina waxay ka ilaalinayaan dusha. hooyadii iyo aabbihii ayaa markii dambe wada xanaaqay, waxaanay go'aan ku gaadheen in ay goobtana ay ka kaxeeyaan wiilkooda maadaama uu goobtan wiilkoodu uusan ku dareemayn wax nafis ah, caafimaadkiisuna uu sii galay halis. Elin intaas ka bacdi waa uu ka soo cararaa qolkiisa, waxaana uu u yimaadaa aabbihiis isagoo u sheegaya inuu mar walba uu aad u argagaxo habeenkiina uusan seexan. intaas ka bacdi dhakhaatiirtii ayaa soo qabatay Elin, balse wuu ka cararaa isagoosan rabin inay saaraan miiska lagu dabiibi lahaa. Eli markaas wuxuu arkaa dhowr sawir oo ay ku jirto dhakhtaradda u xilsaaran caafimaadkiisa. Elin markan waxa uu soo galay qol ka mid ah qolalka agtiisa ah, markaasna sanka ayuu qabsaday, neeftuna way ku dhegi gaartay waqtigaas. Elin intaas ka bacdi dhulka ayuu ku dhacaa, wax walbana waxa uu ku qabaa alerji. Eli hooyadii sidoo kale aad ayay uga argagaxsan tahay wiilkeeda. waxa uu la kulmay raallina kama ah in wiilkeeda uu sidan ula dhaqmo. markan waxaa u timi gabadhii ruuxaanta ahayd, balse aabbihii ayaa wiilkiisa xoog ku soo kaxeeyey, keenayna sariirta lagu dabiibi lahaa wiilkiisa. intaas ka bacdi hooyadii ayaa baabuurkii ka furtay gadaal, waxaanay ku aragtay arrin la yaab leh, balse waxay u sheegtay ninkeeda inay ku aragtay mindi.